wax idea u haynin ka hadlaayo iyo qofkii ugu jawaabayaba intaasba aaday u qaldayin inay waxaas ka hadlaan. Okay, waxaa jirto sheekadana maxay ku bilowday video oo TikTok la duubayo ani Cadnaan yes wuxuu dhahay saaxiib nolosha way xafsa saaxiibtinimo oo kor way naga dhaxaysaa maaha saaxiibtinimo oo naf iyo balaayo laga hadlayo inta dhan maahan saaxiibtinimo caadi naga dhaxayso like walaalo dad oo iga dhawey jiraan oo saaxiib asaga iga dhawey jiraan weligay ama igu aragteen waa maya wiilal iga dhawaa saaxiibanahay saaxiib oo wax kasta u sheegtay jiraan oo asaga iga sii dhow laakiin inaan ina imaadmaan sheeg waa may sheekadan dhan video oo TikTok ku bilowday TikTok hadii la isla duubo oo qofkan views ku helaysid oo qofkii views kugu duubo ma ina video-ga advantage ka dhigtid ama meel kasta dhigtid qofkan waxa naga dhaxay aadaadid aada ugu qaldad su'aasha sita walaalkayga waa ka saxaya muuqaalkaas aada ugu qaldantay hadii micnaha oo aniga maanta views raadinaysid ama TikTok ku galgaca aniga gacaniga magu isnu nugna miga video waa kula duubay video ku kala kacay video wala soo duuba Soomaali horta hal waxa ka qaldan maxaa dadku wax misla duubi karaan miya qof kasta wax la duubo maxay u soo dhijinaysan ani qof hada xiriir leeyahay xitaa qofka aad jecel qofka kale waa kala taqaanin qofka aad jecel waa jecel ku soo qoraa ma qofka oo saaxiib ku soo qor ina soo qaadaan YouTube meel kasta ku dhijisaan sharafteeda intaas iima dhamo waa li dhalay waa li la dhashay soo marka aad ugu xumahay ina ani sharaf la'aan dhigtaan maxaa la nin kasto oo shaati wata waa igu soo dhijisaan excuse me waa li dhalay waa li la dhashay waa li rawaa samahan ina nimanka igu dirtaan oo qof kasta igu dirtaan aad ugu qaldantiin tan kale video arkay video aad ugu xanaaq waa dhegeysan labo cunadii ama cuntadii ugu macaaneed abi ya marka la adi baan ugu subxaan dadka wixii u soo bixi saxaab raashin siyaasay cuntadii ugu macaaneed abi ya adna adina marka laga soo tago marka laga soo tago hooyo iyo walaal yaa ku kariyay cuntadii ab okay waxa la weydiiyay ka soo hooyada iyo aabaha cuntada ugu horeeyay cuntada ugu macaana excuse me cuntada ugu horeeyay maahan ka soo hooyada iyo aabaha cuntada ugu macaana yaa ku kariyay ugu macaanka badnaa wallahi cuntada aad ugu macaanka waxa ay karsay intaan ka salaamayo aniga aan baxsaday magacahan saaxiibka nolosha okay wuxuu dhahay cuntada ugu horeysay cuntada ugu macaaneed waxa ay karisay saaxiibta nolosha okay come on guys ana guriga cunto ku karsada cunto la'aan mihi cuni guriga cuntada ku karsada oo imaado oo cuno qofka is not big deal qof kasta cuntada guriga ka cuno qofka snackteed shaqaalada cunto naagta shaqaalada guriga joogto cuntada kaliya way cuntaa so marka guys haduu dhahay cuntada ugu macaan taxafsaa karis waa la kala cunto macaan it doesn't mean maxaa laha cuntada ana soo qaadanay kana ka dhaxeeyo aad u qaldantiin so marka tan kale su'aal kale arkay oo la weydiiyay suuq la nasay bal raashinka ay ku karisay saaxiibka noqday ama qof markay saaxiibtada tahay weekend oo nolosha ka caawiso kula saaxiibka kalimaanta isdhihi karo xanuunada dareemi kartaa okay waxa la weydiiyay xafsi adi maxaan igala dhaxeeyo like social media wax wareegay maalmahan wuxuu dhahay xafsi waa saaxiibtay xanuunkayga dareemi kartaa yes qof kasta xanuunkiisa dareemi kartaa qof kasta saaxiib la noqdaa badan ay bogsiin kartaa xafso lagu soo deewaano ma sheekay karo jacaylka ayaa u fasirtaa wallahi law okay su'aal kale la weydiiyay waxa la leeyahay saaxiibta nolosha dhahday xafsi saaxiibta nolosha may ku saaxiib may ku tahay mis jacaylkaaga u fasirtaa badan baa u fasirin kartaa ala kala hoonaha ma daawan miya jacaylku labada dhinac baa u fasirin kartaa uu dhahay labada dhinac wax loo fasirnaa ma lahan su'aal la weydiiyay su'aasha dhinacna ugu jawaabta loo baahan yahay tan kale kalhoonaha oo anigu ma arkin saaxiib jacayl isku bedelahay like waxa ku arkay shaaruqan oo dhimanaay dhimash ma balansanaysaa okay jacaylka lagu sheegay duu saaxiibtinimada ka bilowdo aniga saaxiibtinimadan caadi waaye waxaa naga dhaxaysa wiilkan ay kala hadlo saaxiib caadi anaga dhaxeeyo nothing else tan labaad aniga
qofka aad jecel ama qofka kale ha ka sugan in aan naftirkeyga ku keeno YouTube never. TikTok isla wareegno ama YouTube wareegno WhatsApp, laakiin YouTube nolosheeda maya. ninka aad jecel YouTube ma la imaanay dambi miya ninka ku aragtay YouTube ka ninkeyga maahan. So please respect. anigana qof aad jecelkiis ma lahan, wiilkan saaxiibtinimo caadi anaga dhaxayso. So please isku day inaad su'aasha fahanto, because aniga waa arkay qof kasta YouTube ka views raadis leeyahay. arintii kullu la soo fadhiisana qof wax lagu weydiisana qofkii jilcana la fiirna waa la fadhiisana su'aal la weydiina. So please isku day ina maxal laha wax labada dhinac ku hubsato, because that is best for you and best for us. please isku day ina fahanto. Cadnaan waa ku sheegaya mar labaad bar saddexaad saaxiibtinimo caadi anaga dhaxayso, wax jecel waxaas naga dhaxay ma lahan. ani waalida leeyahay, walaala leeyahay, wehela leeyahay. saddex doon markii ay ugu dirtaan isku dayina video inta waa la rabay intaas waaye. dadkan oo qof kasta ciwaan ka soo dhigto oo wiilka inoo wato wareysanana please aan respect gareeno. respect kala mudane ma aha inaan meelo isku gul dacdacsano. so marka video inta maanta soo fadhiistay xanaaq dartiisa oo arkoosin in aan wixii shaati wataba wax la duuba ay u soo dhijisaan waa mid idinka ni gaartay. so marka ana hada saaxiib xitaa leeyahay YouTube ka ani asbuligan ma soo wada fadhiisanin. okay ay ugu direen dadka Cadnaanna waa saaxiib intaas waa inta kaliya dhigi kara video ga soo fadhiistay. dadka dadacsanay oo qaylinana please qaylada yareeyo ma ahan waxana iskaga hadashaan waxa rabtaan. xanaaq dartiisa aan inta soo fadhiistay bismillah wixii shaati qaba wax la soo duubtaba dhiyo YouTube dhiyo inta dhiyo TikTok ma ba arkin ani video ga mar la duubeen warba ma keenin mar la sheegin igala mana tashin oo ma ii sheegin wiilkan TikTok la ku dhax arkuya asoo socda maxaa micnaha jecel maani dhiboy wa marada maxal isiga haleena meeshan social media waay social media lagu jira waxaan wax oo hadda dhamaanay ma ahan. so please marka iga dhaaf waxyaabaha qaarkood sameynaysan waxaan wax ku jiray meeshan waay waxay hooyadii arkayso waay wuxuu walaalkayga arkaayo waay wuxuu saaxiibkayga arkaayo waay. so marka please isku day ina daacad noqotaan waxa rabtaan iska sheegtaan. intaas waa inta u fidhiica intaan dhan aan hadlaay. so video inta muhiimad waa ka soo hadlaa u maleena because ma jecel inaan meel soo fadhiisto barnaamij qof uu leeyahay ka hadlo. peace.